kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka tusmaha horumarka oo toddobaad walba hadaan oo kale aad kala socotaan bandhiga media. toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee gabdhaha farsamada gudniinka fircooniga ah loo guday iyo dhibaatooyinka ka dhashay qaab noocee ah ayay bulshada Soomaaliyeed looga wacyigelin karaa ma wacyiga dadka ayaa isbedelay muddooyinkan dambe sida caadadu ahayd dadku waxaa loo gudi jiray gabdhaha Soomaaliyeed farsamadaasi hase yeeshee dadaalo oo dhinacyo kala duwan oo socdo ayay haatan waxaa jirto in numberka uu sii yaraanayo gabdhaha halkaas ama dhinacyadaas ama farsamadaasi loo gudo. toddobaadkan barnaamijka ayaan ku eegaynaa waxa ay nala jooga anagoo ka eegi doono dhinaca diinta caafimaadka iyo sharcigaba waxa ay nala jooga xogayaha joogtada ee wasaaradda diinta iyo qaafta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Khayrow Aadan xogayaha joogtada sidoo kale waxa marti inoogu ah garyaqaan Axmed Cabdullaahi Xuseen oo isna dhinaca sharciga ah waxa ay arintan tahay in la falanqeyn doono sidoo kale Luul Maxamed Cali oo dhinaca caafimaadka ka socoto isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ee ka howlgasha ahna aqoonyahan dhinaca caafimaadka ku xeeldheer waxa iyadana inala falanqeyn doonta waxa caafimaad ahaan ka dhalan doono martida marka hore ku soo dhawaada barnaamijka Khayrow adan kugu bilaabi doonaa wasaaradda diinta iyo qaafta bal arintan ama dhacdooyinkan sidee ay ula socotaa bal marka hore si kooban noogu faahfaahay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. runtii mawduucan ma aragtay mawduuc waayahan aad loo hadalhayay wasaaradda dhexdeedana aad uga jiray buu ahaa iyo mujtamaca ka kul wasaaradana si gaar ahaaneed marka arintu ay joogto qaab diimeed laga fiirinayo oo wasaaradda oo wax badan ay ka khuseen karaan waxay ahayd ayadana mawduucan arin wax badan kala xiriirta ama kala yani ku taxan arintan marka waa arin hadda waa ogtihiin taariikh juduur xidid yani ku xididaysatay dalka muddo dheer dalkan ka soo jirtay dalkan Soomaaliya weligiis gabdhaheena waa la gudi jiray gudniinka dalka laga maxay ahayd la isticmaali jiray ama lagu dhaqmi jiray runtii wuxuu ahaa gudniinkan hadda aan raahno fircooniga marka gudniinku sidiisu yani shareeca ahaan marka la fiiriyo waa arin waarid ah oo jirta oo shareecada islaamka ay fuqahada islaamka ay ka hadashay culimada waaweyn maxay ahayd shuruucda yani fasirtay soo dhaweysay fiqiga waxa loo yaqaan dejisay waxa waaye arintan waa ka hadleen in aan ka hadleen kuma jiro marka hadii ay ka hadleen mawduucan maxay ahayd yani waxay xaqiijiyeen gudniinka inuu sharci yahay laakiin waxa adigu waxay isugu khilaafeen in ma aragtay gudniinkani yani waajib uu yahay inuu sunna uu yahay meelo saas bay isugu khilaafeen marka jumhuurtan waxay u badatay inuu gudniinkan maxay ahayd gudniin uu jiro uu yahay garyaqaan bal dhinaca sharciga oo kale qof inuu qof kale naftiisa oo gacantiisa ay ku baxdo muxuu ka qabaa sharciga. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وما بعد marka hore waan u mahadcelinayaa bandhiga media intii barnaamijkan ay qabatay dhacdooyinkii ugu dambeeyay waliba dadka loo soo bandhigayo iyadoo la rabo in dadku ay noqdaan dad la socda waxyaabaha dalka ka dhacaya gaar ahaan ku xadgudubka lagu xadgudbayo gabdhaha Soomaaliyeed xubinkoodii taranka ahaa waxaan ka hadlaynaa waxa weeye wax kale ma aha waxaan ka hadlaynaa yani gudniinkan oo غير sharciga ah ama loo yaqaano gudniinka fircooniga loo yaqaano gudniinka fircooniga ah asalkiisa wuxuu ka yimid dhankan iyo Masar iyo meelahaas uu ka yimid marka wuxuuna ku soo faafay Afrika gaar ahaan waliba bartamaha Afrika ku soo faafay oo Soomaaliya ka mid tahay waa caado jaahili ah oo aan waafaqsanayn diin islaam iyo mid aan islaam ahayn labadaba aan waafaqsanayn sidaas darteed marka ficilka noocaas ah markii uu dhaco dhibaato dhalata marka dhibaatadaas ka dhalanaysa waxa lagu magacaabaa fal dambiyeed lagu magacaabaa qofka insaanka nooc doon ha noqdo muslim iyo غير muslim
fal kasta oo asiga ka yimaada oo qof kale u xadgudba oo qofkaasi uu ku dhibaatoodo waxa weeye dembiyaa loo yaqaanaa markaan u noqono shareecadeena islaamka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam uma catiya markii uu la hadlayay oo ahayd dhakhtarka markaas jiray oo dadka guda wuxuu u sheegay laba arrin buu u sheegay wuxuu ku yidhi shumiyi walaa tanhaki amarna waa siiyey oo waxaasu sameeyu yidhi waxna waa ka reebay muxuu amray marka iyada wuxuu yidhi mindida wax ku gudaysid ha noqoto maxaan ku rahdaye mid la taabsiiyo keliya oo la ursiyo shumi maxaa ursiin waa bis in la ursiyo oo la xoogga taranka ah la waxyar dhiiga laga keeno walaa tanhaki waxa weeye isagoo dhan in la gooyo ma aha in maxaan ku rahdaye la qardajeexo ma aha in dhaawac la gaarsiiyo ma aha horta xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu xadgudbay waa lagu tuntay sida ka cad ficilka hadda la sameeyo ilaa iyo 3 meelood ayaa dumarka laga jaraa afka hore waa laga jaraa labada geesna waa laga jaraa kadibna waa la isku taraa intaasoo dhan marka waxa weeye waa xadgudub lagu sameynayo ilmihii yaraa ee la gudaayay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahalukati war naftiina ha ku ridina meel tahluka ha ku ridina waxaad ogtihiin oo hadda media aan ka dhageysanaynay bandhiga media ay soo saartay gabar gobolada dhexe ku dhimatay wax kale uma dhimanin gabadhaasi gaajo uma dhimanin irbado dore uma dhimanin waxay u dhimatay dhiigbaxay u dhimatay iyo sakiin lagu guday u dhimatay marka intaas waa inta la og yahay oo hadda ay meediyuhu soo bandhigeen imisaa gabdhood oo noocaas oo kale ah aa jira oo maanta dhimanayo aan la ogeyn aad u tiro badan tahay shareecada islaamku way xaaraantamaysay arrinta iyada waay lulahay maxaa caafimaad darro ah ka dhalan karo oo qofka loo gudo farsamadaasi bal si kooban bismillaahi alxamdulilah suma salaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin anoo ku hadlaya bahda caafimaadka dhibaatooyin aan lasoo koobi karin ayaa ka dhasha gudniinka fircooniga maxaa ka mid ah dhibaatooyinkaas dhibaatada ugu horeysa ee ka dhalan karta waxay tahay dhiig bax uu qofkan u dhiman karo anada taa markii ay dhacdo qofka hadduusan dhiig bixin xitaa waxaa ka dhalan karo inay gabadha egfishan ku dhaco guurka caqabad ay kala kulanto waxaa kaloo ku dhici karo in dhiig baxdo waxaa ku dhici karo inuu egfishan ku dhaco dhalmadina ay ku adkaato because barnaamijka la sameynaa ma aha barnaamij sahlan qofka jirkiisa yaa la jarjarayaa caqabada ugu weyn ee haysata gabdheena waxay tahay qofka shaqadii qabanayay maaha qof u xirfadeysan oo aqoon u lah shahaado u haysta waa maamo loo yaqaano TBA umulis dhaqameed oo kale shaqada ay qabanaysa xirfad uma lahan qofka dhibaato ku imaan karto waxaa jira wax marka xataa arrimaha noocaas la sameynayo qof wax baadal dhaho anesthesia oo qofka lagu daro ayadoon loo adeegsanin qofka jirkiisa wuxuu rabo ilaa qofka xoog weyn wuxuu rabo ku sameynaa mugta inuu qofka wuxuu doono uu ka sameysto ka umulis ahaan haddii aan u hadlo arrimo dhowr ah anaga nala soo wajaha markii naloo keeno oo dhalmadii ay ku adkaato oo cunug oxygentii ay ka xirmato oo soo laaban doona caqabadooyinkaasi aad la kulantay ama goobjoog u ahayd sheekhow maxaa doorka culimada hoggaanka gudniinkan fircooniga oo baahsan u geysta gabdhaha iyo dumarka Soomaaliyeed bal ma jirtaa wasaaraddu in ay kala dagaalantay waxaan ama fadwooyin ay ka soo saartay oo soo laaban doona caqabadooyinkaasi aad la kulantay ama goobjoog u ahayd sheekhow maxaa doorka culimada hoggaanka gudniinkan fircooniga oo baahsan u geysta gabdhaha iyo dumarka Soomaaliyeed bal ma jirtaa wasaaraddu in ay kala dagaalantay waxaan ama fadwooyin ay ka soo saartay arrintaasi waa arrin maaragtay oo waaya jirto waaya ma garanaysaa wasaaraddu 2014 13 iyo 14 iyo 15 16 ilaa 17 arrintaasi shirar waaweyn bay wasaaraddu qabatay culimada dalka inta maaragtay yani aqoonta fiican lagu ogyahay oo arrintaas ka jawaabi karta ama fatwo ka bixin karta ama dhaweyn karta culimada dalkoo dhan gobol kasta iyadoo aan hal gobol laga tagay aan jirin culimaha la isugu keenay marka waxaan arrintan la dhex dhigay iyadoo ay tahay wax lagu cabirayo maxay ka qabtaa shareecada islaamku
arrintaasi aad ayaa loo lafaguray culimmadii Soomaaliyeed shirarka isdabayaalka ahaa oo intaa aan qabanayn ugu yaraan 8 shir ayaa muddada dheer ee 4 sano ayaa jirtay sanadkan hadda socdo waxayna soo saartay fatway ka soo saartay culimmada Soomaaliyeed fatway ka soo saartay arrintaas waxayna caddaysay in gudniinka dalka ka jiray sanooyinkii aan soo dhaafnay tirada badnaa ee haddana si aad weli baaqi u ah oo gudniinka fircooniga Soomaalidu ay ku sheegto gudniinkaas inuuna sharci ahayn shareecada islaamkuna uusan lug ku lahayn ay tahayna maaragtay in la joojiyo laakiin halkaasi uu jiro gudniin sunni ah culimada saasay soo saartay Garyaqaan adiga ma la kulantay kiisas noocaas oo kala ah inta arrimahan sharciga ama garsoorkii ku guda jirta horta sidoo falalku markay dhacaan waa la maqlaa ama media laga maqlo ama si kale loo maqlo social media hadda adduunku wuxuu marayaa heer qof walba mobilkiisa wax loogu soo diro aragti noocaas horta waan aragnaa falal noocaas ee dhacaya laakiin qof inta lagu eedeeyey maxkamad lala soo tiigsaday ilaa hadda ma jirto taasina waxaa keenaysa qaab dhaqanka garsoorka dalka oo aan heerkaas maanta aan gaarsiisnayn sababta ah qofka hadda inta gabar guday gabadhii ay u dhimatay isagiina uu nool yahay uu joogo cid marka iyadaa daba taaganna aanay jirin waa wax aada runtii u xanuun badan waayo marka ma jirto ilaa iyo hadda qof maxkamadda la keenay arrintaasi lagu eedeeyey xukun ka soo baxay ama xabsi la geliyey ama loo dilay ama lagu ganaaxay ilaa hadda inta anigu ogahay ma jirto laakiin dhibku waa dhaca waay adab kugu soo laaban doona lul waa u soo laaban doonaa qaab ay culimada ugu wacyigeli karaan dhibaatooyinkan gudniinka fircooniga ah ma sameyseen waxaan xasuusanaa in tababaro arrintan ku saabsan Muqdisho iyo Garowe in hay'adda Global Media Ifrah Foundation iyo wasaaraddu ay isla wadeen tababarkaasi bal ma dhaqan geliseen waxa weeye waa ogtahay dadka culimada ah inta badan waxay ka yimaadaan masaajiday ka yimaadaan imma khatiib waaye wa imma waxa waaye imaam waaye wa imma daaci waaye oo ducaada ka mid ah ama wasaaradayba ducaad ka yihiin oo ay joogaan ay saas uga qayb galayaan marka arrintaasi meel badan baa laga fidiyey meel warbaahinta maaragtay saas u furnayd mar kasta oo shirarkaas la qabanayay warbaahintana si open ah bay iyaduna u baahinaysay waxaa kaloo intaa dheeraa in masaajidada maaragtay laga gudbiyey culimo badan ay gudbisay waxaa intaa dheeraa in sloogano waaweyn haddeerba ilaa baaqi ay ku yihiin oo taagan yihiin wadooyinka haddaad martid ilaa masaajidka isbahaysiga iyo kor ilaa airboortka aad ku arkaysid tabeelayaal waaweynoo wasaaradda uu qaaftay arrimaha waa la dhaqan geliyey si fiican baa loo dhaqan geliyey hataa maxay ahaydoo caasimadda keliya ma ahe seminaar waxaan ku qabanay oo wasaaradda waday iyada oo UNICEF la kaashanaysay waxay kismaayo ku qabatay mid kale baydhabay ku qabatay waa arrintaas arrin aada looga shaqeeyo Garyaqaan maxaa ku daraysaa cafwan intaas hadda maxaa ku daraysaa wacyiga dadka ma isbedelay ma numberkan tirada badan ee haatan dadku soo baxay ay leeyihiin gabadheen waxay u dhimatay farsamadaasi kuwa badan baa jiro in dhaqankii hore traditionalka ama laga soo guurayo la hadda la fahmay in arrintan la xakameeyo inta la xakameyn karo أنا waxaan leeyahay inta ay wacyigelinta ay bilaabatay ayaa waxaa bilowday in dhibaatooyin jiray oo qarsoonaa in ay banaanka soo baxeen marka waa wacyigelin loo baahan yahay haddii inta hadda maanta ay joogto ka badan la sii wadana yacni la ogaan doono dad badan oo arrinta iyada ah u jiifa ama u dhintay dhinaca kale markii la fiirin waxaa la ogaan doonaa in dad badan barnaamijkaasi ay ka tanaasuli doonaan oo ay qaadan doonaan gudniinkii marka iyada ah sunniga ahaa midkan fircooniga ah ee gabdhaha lagu dhaawacayo ama lagu haligayaba inay ka joogsan doonaan diiniyan marka maxaa ciqaab noocee ayaa ka dhalan karto in gabadha loo gudo sidaasi bal si kooban oo faahfaahin qofka haddii horta uu falka isaga ka yimid uu qofkaas uu dhintay waa la yaqaanaa
qisaasta marka iyada qofkaas uu leeyahay qisaastaas weliba marka culimadu waxay leeyihiin haddii qofka falka geystay lagu caawiyey waxaa ku caawin kara marka iyada dad kale eheladiisa ku caawin kara xataa waxaa laleeyahay arrinta iyada ah waa la wadaagayaan faldambiyeedkaasi waa la wadaagayaan marka shariicada islaamku meel adag bay gaarsiisay oo qofka isaga ah arrinta iyada ah sameeyey marka wax banaan ma aha wax banaan ma laakiin waxay u baahan tahay dhaqankii shariicada islaamka oo la tadbiiqiyo la geeyo maxaan kale maxkamadihii iyo xeer ilaalintii iyo maxaan kale xafiisyadii garyaqaanada ay noqoto arrin kitaabada inta kasoo dhex baxdo xafiisyada ka shaqeysa ay u baahan tahay luul haye bal waxaa noo sheegtaa bal caqabadaha ka dhashay ama adiga a goobjoog u ahayd intan farsamadan gabdhaha loo gudaya caqabadaha kuwa horta lasoo koobi kara maa inkastoo hadeertaan sii yaraanayso dhibaatada maadaama wacyigelintii badatay inkastoo weli dhimashadii sidii la rabayna weli wax ma gaarin laakiin waa sii yaraanaysaa okay waxaan la kulmay caqabad aan la soo koobi karin waxaa ugu darneed gabar oo gudniinka fircooniga 3 face uu leeyahay face 1 2 iyo 3 face 3 ugu dambeeyay ahayd xilligii positionka cuniga uu soo galay ee dhalmada la gaaray cuniga uu dhalan kari haddii aysan barnaamijkaas aysan ku jiri lahayn oo gudniinkeeda fircooni ahaan lahayn ha qaatay caqabada ee gudniinka kala kulantay awadeed cunigiina wuu dhintay ayadana way dhiig baxday dhibaatadaas waxaa loo aaneynaya dadka geystay falkaas oo weliba fal dambiyeed loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed lagula kacayo wasaaradda caafimaadka waxaa ka codsanayna arrintaas maadaama hadeertaan ay ka hadashay wacyigelin badan ee ka bixisay way ku mahadsan tahay laakiin in la sii baahiyo oo dadkii wax loo sheego qaasatan Soomaali ahaan si diiniyan dadka wax loogu sheego idinka mas'uuliyadaasi ka bahda caafimaad ahaan ma qaadataan oo dadku ma kala hadashaan in arrinkan uusan ahayn wax wanaagsanayn oo hooyooyinka xataa iyaga adigoo tusaale siinaya leedihiin bal waad ogtahay sida xaaladda marxaladda soo martay hooyo gabadhaada sidan ha u gudin ma tirahdaan tusaalooyinkaas ma si fiican waa waajib anaga naga saaran aan u sheegno xitaa xaafadaha aan deganahay inaan ka bilaawno ee waajib u tahay undir cashiirada kala qarabin in xaafadaha laga bilaabo oo ehelka laga bilaabo oo qof walba loo sheegay sida ay u sii gudbin lahayd maamooyinka xitaa noo imaadaan oo gabdhaha keensadaan markii barnaamijkaas aan ku aragno in ay ayagana ku jiraan oo dhana maamo falkan waa fal xun waa fal dambiyeed maaha wax sunni ah ina adinkana iska joojisiin dadka aragtiin u sii sheegtiin waa ka codsana waa u sheegnaa mar walba waa ku wacyigelinaa shaqeelow culimada iyo hay'adaha dawladda qaab bay isaga kaashan karaan ka hortagan gudniinkan fircooniga ama xubinta taranka bal maxaa noo laga wadaagi kartaa kulley waxa waaye waxa waaye wasaaraddu daa'iman wa abadan jaanibka ka khuseeyo oo arrintan waxa waaye diiniyan arrintani waxay ka qabto iyo marka fatwadaasi la soo saaro in la baahiyo oo si ay u gaarto guri kasta oo dalkan Soomaaliya ka mid ah marka arrintaasi waxa waaye horeyna wasaaraddu waa u howlgashay laakiin waxaad ogaataa qadiyadan qadiyan u baahan waaye iskaashi guud ee heer qaran ah oo 2 ama 3 hay-adood kaliya ayna khuseyn waxay khuseysaa gobolada dalka isteedyaday khuseysaa iskaashi inay ka geystaan yacni waxay khuseysaa dhowr wasaaradood oo dalka ka tirsan ayay khuseysaa marka mujtamac oo aad loo maaragtay warbaahinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo awqaafta arrimaha diinta iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaarado badan bay khuseysaa arrintan team isku xiran in la abuuro sidii ololihii oo kale qaab olole dalkan Soomaaliya markii ololaha maxay ka hirgeli jiray far Soomaaliga markii la soo saaray oo kale cid aan ka qayb galin male walow hay'ado khuseeyo guddiyaal heer qaran ah guddiyaal heer gobol ah guddiyaal heer degmo ah ayaa ololahaas ku hirgalay noocaas in looga hortago dadka dhinacaasi aadka ugu takhasusay mararka qaarkood ama wararka magaalada ku jiro waxay mararka qaarkood ay sheegayaan in wasaaraddu ka hortag aysan sameynin diintii awqaafta fadwo ahaan aysan ka soo saarin barnaamijkan FGM-ka bal arrintaas maxaa ku jawaabaysaa arrintaas dadkaasi waa dad hurdaya ama qasad kale aan u malaynayo inay ujeedo kale ka leeyihiin wax qarsoon ma aha mashruuc wasaaraddu ay ka shaqeynaysay 4-5 sano ay ka shaqeynaysay culimada Soomaaliyeed dalkan ku nool cid aan ka qayb galinba
oo inta marmuuqiinta inta muuqata qof aan ka qayb gelinba uu yaryahay iska daayataa waxaan ka qayb gelinaynay maxay ahayd wasaaradda caafimaadka ka qayb geli jirtay wasaaradda haweenka ka qayb geli jirtay iyo yacni jaamacadaha ka qayb geli jiray professorada maaragtay jaamacado badan ayaa maaragtay lecture ka bixinayay oo si ay yani arrin yani in lagu riixo yani tanka ay leedahay tan la eg lagu riixo wasaaraddu waa uga howlgashay laakiin sanadkan hadda 2018 oo mashruuci isaga xoogaa yara maxay ahayd hakaday maahaane waa arrintaana arrin haddaan aan ku iri yani hal habeen iyo maalin gudahood arrin u baahan ma aha arrin shaqo culus u baahan waayo mashruuca maxaa hakiyay bal meeshaas waxbaa dadku daawanaya oga soo baxay wax kale ma hakin mashruucu wuxuu u baahan yahay imkaaniyaad buu u baahan yahay wasaaraddii waa joogtaa culimadii waa joogtaa isku xirkii iyo shaqadii kulli waa la heli karaa yacni dhinac dhaqaale buu u baahan yahay mashruucu de budget wasaaradeedu hadda meesha yaallo oo arrintaa loogu howlgala ma jiro doorkaas marka wasaaraddu dhinaca dhaqaalaha marka laga soo tago wasaaradda sideeda kale waa diyaar ما شاء الله يعني waa la dhaqaajin karaa wasaaradda keligeed ma dhaqaaqaysa mujtamacay wasaaraddu dhaqaajisaa jaanibka culimaday dhaqaajisaa waxgaradkay dhaqaajisaa iyadoo loo marayo warbaahinta iyo islooganada iyo maxay ahayd wax kasta oo dadka wax lagu gaarsiin karo almuhiim waxa waaye dadka inay warkaan shareecada islaamka yani u caddayso oo dadka la gaarsiiyo doorkii wasaaradda soo ma ahayn in ay dadka ka wacyigeliso arrintaasi mandatekii ay dowladdu ay u egmatay soo arrintaas ma ahayn kaas keliya ma aha wasaaraddu wax badan baa loo qeyb ka yahay doorkeeda waa gudatay laakiin ogow waxaan ku iri cududda iyo tanka arrinka kan uu leeyahay baahida uu qabo loo baahan yahay in lagu riixo ayaa meesha taal ma ogtahay marka kolley waxa waaye waxay u baahan tahay arrintan iskaashi qaran in laga sameeyo insha allah dhinaca sharciga usoo laabanaa sharci yaqaanadu ama garyaqaanadu ama looyaradu intaba haddaan isku soo wada aruurino dadku kiisaskan dadkii u doodi lahaa ama dhinaca sharciga ka fiiri lahaa oo mararkan kiisas badan ayaa jiro oo maxkamadaha yaallo arrintaasi bal doorkiinu in arrinta sharciga ahaan marka la fiiriyo dadku sharciga xataa waxaan inaysan wanaagsanayn ahayn door baa idinka saaran doorkaasi ma gudateen haddii aad gudateen qaab noocee aad u gudateen arrinta horta marka in laga hortaga la rabo xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha diinta ee Soomaaliya warkiisa waxaan ku kabayaa yani baahida jirta la rabo in barnaamijkaasi lagu wacyigeliyo haddii aan si kale haddaan u dhigo haddii wasaaradda aan la siinin miisaaniyad ku filan oo mashaariic noocaas oo kale dadka lagu wacyigeliyo ay qabanin macnaheedu waxay noqonaysaa wax iska qoran oo yaalla oo balaankii markaa iyada sanadlaha ahaa oo isaga jira oo wasiir kasta markuu baxo mid kale yimaadana meesha ugu yimaado bay noqonaysaa waxay ku dhaqaaqi kartaa waxa weeye in miisaaniyadda dowladda loogu daro wacyigelin ku aadan sidii looga hortegi lahaa maxaan ku raadaya xadgudub intaa la eg loogu daro wasaaraddan marka iyada ay adeegsato hay-adaha marka iyada ku howlan iyadoo kaashanaysa in ay fangal ay maxaan ku raadaya ay fan siiso ay dhaqaajiso wacyigelin samayso marka wasaaraddu waxay noqonaysaa wasaarad hormuud ka noqota ka hortaga arrinta noocaas oo kale ah ama midda maxkamadaha iyo garyaqaanada iyo marka loo soo noqdo haddii fal dambiyad dhacay maxkamadda la hor keeno dabcan horta waa ka hadlayaan garsoorkuna waa dhagaysanayaa wixii ay la noqotaan uu kasoo saara laakiin ilaa iyo hadda inta aan anigu ogahay gabar la guday oo dhibaato noocaas ay gaartay ama u dhimatay oo reerkoodii ay soo dacwoodeen oo la dacweeyey dhakhtarkii ama gabadhii umulisada ahayd dambigaas gashay oo maxkamad la hor keenay horta ma jirto waa jiraan kiisas adaa ka wareyna ma kiisas garsoorka yaal waa jiraan inta aad ogeen inta aan ogahay ma jirto hadday jirto saa u sheegaysa u jirtana taan garsoorka waxbuu kala dhihi doonaa waxaana jira kulley qaanuun guud ah jiro sharcigana ma ogola tacadiga wax la yiraahdo
garsooraha markaas la hordhigay ayaa talada markaas ay hortaalla un go-aan ka gaari doono. waaya luul dhinaca caafimaadka marka laga eego bal qofkan marxaladaasi markuu ku dhaco sidee ula tacaashaan oo marka waxaan ka hadlaa dawo ahaan iyo sida qofkan bulshadu uu qayb ka mid ah xubintiisa taranka laga jaray dhibaatooyin badan uu la kulmayo bal ma jiraan wadiiqo oo qofkaasi lagu xaliyo in case haddii hadda keeskaas oo la kulantid asoo markaas shaqadii oo lagu qabtay qofkii ama oo dhiigbax lagu keenay maadaama goob caafimaad aad joogtid markaas isbitaalaadka la geeyaa dhaqaatiirta la tusaa maadaama hadda xubintii go-deen la soo celin karin shaqada ugu horeysa loo qabana qofka waxay tahay in dhiigbaxa socda laga joojiyo oo daawooyin la siiyo infectionkii iyo waxyaabaha qaar uga hortagaan waxaa kaloo jiro in loo sheego ayagana la dhaho maadaama hadda ee dhibkan idinku dhacay dhibkan aan loo noqonin dhibaatada kale oo dadka laga wacyigelinayo waxay tahay horta wacyigelinta waa in horta oo wasaaradda caafimaadka ka sokow degmooyinka iyo xaafadaha laftooda in ayaga wacyigelinta ay badiyaan dhaqaatiirta gaar ahaan markii dhaqaatiir ahaan aan hadlayno waxaan codsan lahayn wasaarad ahaan ka codsan lahayn in la sameeyo goob caafimaad oo u gaar ah in gabdhaha lagu gudo ee loo sameeyo dad u tababaran oo keliya aysan jirin wax xaafad lagu sameeyo ama xitaa goob kale oo caafimaad lagu sameeyo khaasatan meel u go-an oo loo sameeyo in gabdhaha gudniin ahaan loogu sameeyo shaqeelow qaybihii dhexe barnaamijkeena mareynaa waxaa jirtay falal badan oo naxdin leh oo la xiriirta kiisaskan oo waqti waxaynu kusoo aadeen wacyigelin ballaaran ay ka sameysay wasaaradda diinta iyo awqaafta oo shaqo wacyigelin ah la wadaagtay muqdisho hay-addan ifraax foundation iyo barnaamijkan FGM sidee culimada UNICEF xataa uun ha kaabto laakiin aan ka fiirino dhinacaasi bal sidee arintaasi ay uga wacyigeliseen dadka ama aada uga hadasheen arrin ahaan sida diinta iyo awqaafta wasaaraddu de tan maxay ahayd waan soo xusnay baan u malaynayaa waxa waaye kolley waxa waaye arrinta marka hore waxay tahay aqoon-yahan yacni arrinta lafagura in la helo waa anigu idin sheegay kuu sheegay in oo profesorada jaamacadaha weliba kuwooda takhasus ku leh yacni arrimaha diinta ayaa shirar ka soo qayb galay takhaatiirta qaranka wasaaradda caafimaadka rag badan oo ayaa jiray ka soo qayb galay yacni aqoon si loo helo yacni aqoonta meesha looga baahan yahay loo helo marka la ururiyeyna wasaaraddu waa gudbisay fatway ka soo saartay yacni needihii u gudbisay culimmadii meesha ka soo qayb gashay ayaa guryahoodii la gurya tegay oo si ay usii baahiyaan isloogano derbiyada qaab kastoo lagu faafin karo ayay wasaaraddu ku faafisay ilaa yowmana haadana wasaaraddu waa u taagan tahay inay maxay ahayd intaa 2 jibaarto 3 jibaarto mawduucaasi laakiin mawduuc wuxuu u baahan yahay marna wuxuu joogaa heer yacni shareecada islaamku maxay ka qabtaa ayuu soo marayay wasaaraddu fatwa ay culimmadii soomaaliyeed aan isu keennay culimo waaweyn oo weligood shir maxay ahayd dowladeed hataa aan kasoo qayb galin ayaan shirarkaasi keennay anagu si kasta aan ku keennay waxayna soo saareen culimmadii si guud ayadoo la wada fadhiyo wasaaraddii haweenka fadhido wasaaraddii caafimaadka fadhido yacni culimmada ay nooc ay yihiinba fadhiyaan fatway soo saartay tii aan idin sheegay ah qaar waxa ay sheegayaan xogayaha joogtaduna in muhiim ay tahay inaad ka jawaabtid su-aashan sida hadda la socotid waxaa la sheegaya in 4 gabdhood ay u dhinteen gudniinkan ba-an lana qaarkoodna isbitaal ay u jiifaan wasaaraddu arrintaasi maxay ka tiri ka xun tahay wasaaraddu arrintaasi aad iyo aad baan uga xunnahay waxyaalaha wasaaraddu ay ka dagaalamaysay ayay koob ka yihiin gabar ku dhimatay maxay ahayd galmudug kol hore iyo gabdha hadda ku dhinteen lanoo sheegay puntland intaasi waa rikoorkood waa haynaa gabadha ku dhimatay galmudug waxay ahayd waxaa involvement ku ahaa oo arrintaasi la xiriirayay garyaqaanka guud dowladda xeer ilaaliyahan rabaa ee guud isagoo fagaara maaragtay arrintaas ka sheegayna anaaba u taagnaa kulley waxay ku dhammaatay ma ogi laakiin qadiyadaasi si dalka yacni muhiimadda meesha taalla waxaa waaye sidee dhaqankaasi looga guuraa oo loo gaaraa maxay ahayd
waxa baahida yani waxa ku habboon gudniin sunni ah ayaa wasaaraddu soo jeedinaysaa in waddankan laga hirgeliyo oo aan wax dhibaato aan gabdhaha u lahayn wax culeysa aan u lahayn laakiin gudniinkaas sunniga ah ayaa dalkan inuu kharaj lagu bixiyo in la xadado u baahan in la xadado buu u baahan yahay khubara oo dhinaca caafimaadka ah iyo fuqaha dhinaca maaragtay islaamka ah oo yani wax goyn kara oo in lisu helo dad badan lisu helo noocaas ah si maaragtay loo hirgeliyo haboono sharci in lasoo saaro oo ku saabsan gudniinkan gabi ahaantiisba lagu baabi'inayo dowladda mas-uul soo kama ah arrintaas dabcan horta wacyigelinta ayaa wasaaradda hadda ay wado haddii aysan barbar soconin gacan bira oo looga baqaayo qofkii falkaas sameeya haddii aanay jirin wadaad wacdiyey unbaa warka uu ku ekaan doonaa wax macno weyn oo ay keenaysana ma laha waa sharci in la helaa sharciga waa jiraa sharciga waa jiraa wuxuu u baahan yahay keliya siyaasad laga midaysan yahay oo dowladdu ay ka yeelato oo balaankeeda ay ku darsato in faldambiyeed noocaas oo kale haddii uu dhaco ciddii markaa iyada ah geysatay inay dembigeeda qaadayso lana arko maxkamad iyadoo lasoo taagay gabar umliso ah ama maxaan ku rahdaa islaan baadiye laga keenay oo laleeyahay maxaan ku raha hiblaaye hebel ayay dishay laleeyahay iyo mindida ay ku dishay ama sakeynta ay ku dishay maxkamadda haddaan laisla keenin sida askariga qorigiisa iyo maxaan ku raha isagaba maxkamad loo soo saaro haddaan heerkaas haddaan la gaarin waa adkaanaysaa in ay dadku ay ka hakadaan arrinta noocaasa dowlado badan baa jira hadda oo africa ka mid ah oo qof alla qofkii arrinta noocaasa ku talaabsada uu ku mutaysanayo ciqaab marka waa ka dareemaysaa masalan waddanka hadda eritrea oo kale aaday u adag tahay qof in inta gabadhiisii uu maxaan ku rahdaay uu jarjaro aaday u adag tahay waxaa ka yaala ciqaab aad u adag baa ka tahay marka haddaan ciqaabta noocaas oo kale dadka aan la gaarsiinin iyadoo mar walba maxaan ku rahda loo fiirinayo diinteenan suuban loo fiirinayo waa adkaanaysaa wacyigelin inay ay wax badan ay keento inkastoo hadda sidii dadka hore aysan ahayn oo baraarug badan ay maxaan ku rahdaa ay qaateen laakiin mar walba sharcigu waa daruuri in la dhaqan geliyo dowladdana dusha ka saaran tahay waaya maxaa ku diraysaa dhinacan marka la fiiriyo xogayaha joogtada iyo dariiqaankaba dhinaca sharciga way mahadsan yihiin caafimaad ahaan waxaa ku dari lahaa in oo wacyigelinta la badiyo si dhibaatooyinkan loo joojiyo maadaama aniga qaas ahaan ee noo taabanayso oo wax dhibaatada loo geysanayo dumarka yihiin culamaa diinka Soomaaliyeed waxaa ka codsanaa inay wacyigelinta badiyaan ee qofka ay u sheegaan in oo si sunni ah ay dadku ugu sheegaan maadaama ay tahay wax raacay fircoon waa nin ilaahnimo sheegtay oo ilaahay ku kufriyay in wax lagu daydo ee tahay ilaahay oo hadhow lagu xisaabtamayo oo la dhahayo lama jaakum rasuulun min rabbikum oo ilaahay rasuul idin soo diray oo agtiisa ka yimid oo fircoon oo ilaahnimo sheegtay aan idin soo diray culamaa diinka Soomaaliyeed awalan waa inay ka dhigaan arrinkaas ay ka hadlaan aabooyinka Soomaaliyeed waxaa iyaga mas-uulka koowaad ay ka yihiin dhibaatooyinka dhacayso maadaama hooyada dhibka gabadheed u geysanaysay iyo gabadhiba ay mas-uul ka yihiin ani waxaan hubaa haddii aabbo oo arrinkaas go-aan ka qaato aan la sameyn lahayn aabooyinka Soomaaliyeed waa inay ka hadlaan ee gabdhahooda iyo hooyooyinkooda la hadlaan ficil oo saga raalli ka ahayn bataatan aan la sameyn karin meesha ugu habboon ee ka istaagi karto arrintaas aniga halkaas ay la tahay waa masantiin waxaan ku tirayaa intaas darasada marka la fiiriyo dhaqanka Soomaalida markii la gaaro gudniinka markii la gaaro hooyadaas kale abashaqa kuma laha haylul abashaqa kuma laha waxa xooga saarayo oo budka soo qaadanayo oo banaanka soo fadhiisan dhaxda xirnayo waa gabadha maxaan ku raadaay gabadha lagu daayo hooyadeed iyo ayeeyadeed iyo hawaryarteed iyo ayaa u diyaar garoobay meesha mas'uuliyad ma ugu ballaaran marka ay tawliyaan odayga hadduu ka hadlo heer waxay gaaraysaa reerkaas ama uu dumo ama lagu kala tagaba marka anigu waa ku celin lahaa darasada waxaan dhihi lahaa dowrkaas waxaa isla waa dowrkii dumarka ay lahaayeen marka dumar ahaan waxa leey u xaliyaan arrinta iyada ah na ka wacyigeliyaan haddii adiga lagu soo jarjaray ama waxaan ku raadaay ayadaa la jarjaray inay xanuunkaas ay dareento aysan ku samaynin maxay ahayd gabadheeda aysan ku samaynin tusaale aan soo qaadanaya inkaa kala goyne haddii wiil maanta oo adiga aad dhashay xubinkaasi laga jari lahaa dhibaato intaan la eg ayaa dhici lahayd balaa dhici lahayd dhakhtarkaasina lama dhaafi lahayn ninkii gudin lama dhaafi lahayn waa lagu kici lahaa waxaa la yidhaha dembi nooga galay
marka gabadhana ragga kama liidato iyadana shiqiro usoo laaban doonaa hayilul waa maqlaysaa fanax أنا حماسن تهاي dhibaatada haysta waxay tahay in doorka mas'uuliyadda ay ka gaabiyeen aabayaashii maadaama uu hadda u eedeynayo in mas'uul laga yahay basalu ahla dhikri ayaga maadaama oo anaga ahaan aqoon u leenahay inaan ka hadalno oo ku qasbanahay waa maasinaya sheekha qaasatan laakiin asaga waxa laga rabaa inuu mas'uuliyadda inuu mas'uul ka yahay macal ayada uu sheegayo inuu mas'uul ka yahay inuu asagan og yahay u sheego qofkan si إلى كعبسدي وح لوجو شيء إنه قاضنا يعني أنا من سنة. شيخي ما حقدره لو أن ضد والله سعته وزارة دينتي وقافتنا حاجة جوك تدياتها. موضوع عني وحخصية جانب ديني وحخصية جانب مجتمع يدرو فيه هوسة بوخصية قارهان هوينكم وحواي لبدي أقول وناجي أيام هلي كرنا محايا لي waxaan wax ku mujtamaceen mujtamac islaami waaye muslimiin aan nahay diinteenana hadda fanax iyo kan wuxuu joogtaa doorka aabiya gabay iyo hooyadii ragii ma hadii aad meeshii celisid haddaad meeshii celisid waxa waaye horta sideeda arrimahan ku saabsan meelahan hadda aan ka sheekeynayno hadal haynteedu raggu ma aragtay inta badan ma jecla marka arrintu waxa waaye ayadoo odaygu kor ka og yahay arrintu maamulka hoose gabadha iskale lulayo bal haddii ugu dambeyntii aabiyu gabadhaada la gudaa la leeyahay waayu leeyahay hooyada ma u dhaafi karo arrintaasi gadaal ka joogaa markii la dhaay wiilka la gudaana aabba waa joogaa oo hawshii gacanta ku haya marka aabiyu wuxuu leeyahay mas'uuliyadan iyo dhaqankan hooyadii askale hooyadii loo daayo dhibka badana maamooyinka ka imaadaan leeyahay oo arintan gudniinka fircooniga oo ragga iska soo riixayaan soo ma muuqata marka gudniinkan inuu faafo ama dhaqankan door inay ku leeyihiin hooyooyinka ama haweenka sidoo kale duwan ama ayaha ama hawraad صح واي يعني هذا dhibaatada ka socoto waa dumarka kaliya waxa taagana dumarka waxa loo sheego maadaama hadda gabadhii horta cudurka intuu soo qof ku dhicin inta la daaweyn lahaa in laga hortaga fiican maano maadaama gabadhii diyadeeda uu leeyahay hadhoona uu maxkamadda soo istaagi doon gabadheedii la iga dila dhihi doono bal hadda inuu cadaadis ku saaro in safalkaas u geesan hadhoona maxkamadda dil la tago si uu soo istaago bal inuu marka hore ka hortago soo idinka mas'uuliyad soo ma ka saarno waalidiintu in ayagu hadii la dhaho gabadhaada la gudaa odaga inuu dhaxmayno qaab noocee gabadha farsamo noocee loo gudaa soo ma ahayn in tala ahaan xataa laga geliyo oo asaga dhaqankan ma haboono in dhaqankan aan u gudano soo ma ahayn in odaga yiraaho bal arintan aad ay u leedahay hay shaqiro inaan ku hormartid mas'uuliyad wadarad waay way ku wada dhacaysaa hooyada abi waa ka wada dhacaysaa markii la yiraahdo mabda'iyan markii la dhaho laakiin caadada iyo dhaqanka hoose ee guryaha yaala wuxuu yahay in odayga maxaan ku raadaaye uu reerka u dardaarmo markay howlahaas dhacayaan uu iska baxo sababtoo xaalad uu guriga ku joogi karo ma aha suuragal ma aha in aabuhu uusan waxba ka ogeyn oo gabadhiisa oo la gudayo maxay ahayd ma faas baa lagu gudaya ma mindaa lagu gudaya waxa qaabka loo gudayo waa inuu si guud u og yahay laakiin maadaama hogaamiyihii maxay ahayd reerka uu yahay gabadhaasee laga rabaa wixii laisku ogyahayo iyo tartiibta iyo laakiin aabbaha suuragalba ma aha inuu moge gabadhayda la gudayo inaan anigu waxba ka ogeyn oo aan wara albaabka ka sii dhaafo ma anficayso ugu dambeyntii qaybihii dambe barnaamijkan soo gaarnay jarjarka xubnahan ama ama gabdhaha in loo gudo waa dhibaato badan ayaa ka dhalan karta ma la iska dhaafi karaa marka gudniinkan fircooniga sheekh fanax dabcan waa la dhaafi karaa haddii la helo wuxuu u baahan yahay oo ay ka mid tahay wacyigelinta oo ay ka mid tahay in la ciqaabo qofkii falkaas maxaan ku sameeyaa oo ay ka mid tahay in dadka garaadkooda la kobciyo ay ka mid tahay inaas hadii la sameeyo qof walba markuu wanaaga arko in gudniinka sunniga uu fiican yahay hadda muuqata boqolkiiba hadda waxaan leeyahay lixdan dadka waa soo gaarin oo qof maanta gabadhiisa u gudaayo gabdhaha hadda ka soo bilow 90kii iyo wixii ka dambeeyay waxay u badan yihiin gabdhaha sunniga u badan yihiin dhacdooyin waa dhacaan oo hadda maxay ahayd maxaa tiri taariikhda 96
maya sagaashankii wixii dowladda burburkii wixii ka dambeeyeyba wacyigelin bilaabatay oo masaajidadii maxaan ku radaa culimaa fadhiisatay hay-adaha soo baxay oo barnaamijyada ka hadlaya marka lama dhihi karo 100% waa laga tegay laakiin waxaad moodaa in wacyigelin numberku aad u yaraaday waxa hadda soo baxayn ay tahay waxaan la ogeyn iyo meesha ay ka dhacayaan aan la ogeyn wadeeha u badnaatay way shaqeelo su-aashii hadda fanax bal horta aan caddayno waxa la dhaafi karaa maxay yihiin gudniinka fircooniga markuu yahay already haddaanba ku taagannahay dagaalaan kula jirnaa arrintaas waxaan leenahay ma banaana shareecada islaamka kuma banaana xadgudub bay ku tahay gabadha soomaaliyeed iyo ciddii dhashay iyo mujtamaca soomaaliyeed xadgudub bay ku tahay dagaal baan ku nahay baa maxay gudniinka fircooniga laakiin yacni aynan is hoos gelinine gudniin ka fircooniga intaan dhahno all gudniin aynan ka dhigin meesha waxa waaye waa aniga halkan ka sheegay 120 caalim oo dalkan ka tirsan markaan isu keenay oo 3 maalmood ay doodayeen maalintii afaraad waxay soo saareen fatwo ah gudniinka inuu sunno yahay ka wasaarad ahaana fariin noocee ah ayaa diraysaan waalidiinta Soomaaliyeed in falkan oo socda la joojiyo بسم الله waxaan diraynaa mujtamaca Soomaaliyeed gobol kasta email kasta oo ku nool yahay gudniinkan fircooniga ah maadaama uusan shareecada asal ku lahayn maadaama maxay xadgudub ku yahay gabdhihii Soomaaliyeed gudniinka fircooniga bil kulliyan in la joojiyo cid kasta oo awoodo inay wacyigelin ka samayso culimada Soomaaliyeed inay maxay xafladaha iyo meelaha muhiimka ah masaajidda iyo mawaadiicda la soo qaato gudniinkaasi fircooniga ah ee shareecada islaamka diiday inay mujtamac gaarsiiyaan inuu xaaraan yahay mamnuuc yahay ugu dambeyntii anagu waxaan soo jeedinayaa horta markii wacyigelin la suubinayo oo la rabo in barnaamij ahaanba gudniinkaas maxaa see lagu joojin karaa waxaa lagu joojin karaa in wacyigelinta horta la badiyo qaabka loo marayo wacyigelinta ay noqoto fasalu ahli dhikr ay noqoto dadka deegaanka joogo ama dalka gudihiisa joogo in wax laga weydiiyo oo iyagaas wacyigelinta ay sameeyaan oo aanay noqonin tii dhacday oo kale maalin dhaweyd BBC-da barnaamij ay qabatay dood oo ku aadan mawduucan gudniinka fircooniga ah dadka ka wada hadlay oo dhan hal dhinac ay ahaayeen marka ma jirin hal qof oo kasoo horjeedo oo maxaan ku radaa challenge ku sameeyo ma jirin taas markaa kamid tahay marka cadaalad darro oo xagga wacyigelinta ka dhacday waaye wax loo baahan yahay ma aha midda kale dadka la wareysanayo laftigooda waa inay yihiin dad xoogaal u ah oo ehel u ah ama dalkii jooga oo waxa dalka gudihiisa ka dhacaya ay wax ka og yihiin ay noqoto dhammaantood warkooda wuxuu kusoo ururay in gudniinka gabi ahaanba la isaga tagaba taana waxay kasoo horjeedaa shareecada islaamka ay kasoo horjeedaa iyo dhaqanka suuban ayay kasoo horjeedaa gabadhii maanta farta lagu fiiqo la yihahdo heblaaya lama gudin guurkeedaba dhaawac gaariba marka waa la gudaya gabadha waxaana loo gudaya sidii shareecada islaamka ay qabtay sunniga ah fircoonigan halkaas uu ku harayaaba lul ugu dambeyntii bal maxaa is leedahay gabadhu in gudniinkan ama xubinkeeda taranka la jaray waxaan codsan lahayn in gudniinka fircooniga la joojiyo laakiin qaabkii lagu joojin lahaa ayaa wuxuu ahaa qaab aad iyo aad u culus because wacyigelintiina waa socotaa barnaamijkan wuu socdaa inkastoo hadda sii yaraanayo waxaa codsan lahayn in wacyigelinta la joojiyo khaasatan oo la hadlayo bahda caafimaadka gabdhaha umulisooyinka wasaaradda caafimaadka inaysan ka noqonin yaclamuuna ma tafcaluuna ayagoo sheegaya in haddana shaqada aysan qabanin marka waxaa codsan lahayn inay meel kastoo ay joogaan ay dhegeysanayaan inay joojiyaan falkan oo fal dambiyeed ah oo gabadha lagu xadgudbin oo jirkeeda la jarjarin dhibaato kastoo loo geysanin waa mahadsantihiin waayahay guud ahaanba daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka tusmaha horumarka ee bandhiga media oon maanta ku falanqeynay dhibaatooyinka ka dhasha gudniinka fircooniga iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhaca dalkeena Soomaaliya guud ahaan waxay nala qireen ka qaybgalayaasha barnaamijka in gudniinka fircooniga gabi ahaantiisba uu yahay gudniin aan ku habbooneyn gabdhaha muslimaadka ama Soomaalida ah aysan fadwo ka soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta
sidoo kale ka qaybgalayaashu uu marti ku ahaa xogeyaha joogtada ee wasaaradda uu sheegay in aysan habbooneyn in gabdhaha loo gudo gudniinka fircooniga ah aysan wax sal iyo raadba midood baanan ku lahayn diinta. garyaqaanka sidoo kale wuxuu sheegay in sharci ahaan loo baahan yahay in sharciga la dhaqan geliyo wacyigelin ballaaranna la sameeyo. doodeennu dhanka caafimaadkana luul ayaa ah inoogala qaybgalayso iyadana dhibaatooyinka ka dhalan kara iyo sida waxyaabaha xaaladaha ay kula kulmaan inoo sharaxday. dhammaanteenu isku duuban intaan toddobaadka dambe aynu kulmi doono nabadgelyo. martidan waa mahadsantiin.